fundamental key technical key risk management key trading psychology inaadan shaqada ka tagin adigoo haysan bedel kale meel u socoto iyo meel ka socoto ee aqoonaysa shaqadayda ma watay karaa inaan bartay suuqa cryptocurrency dhalinyaro fara badan ama dad fara badan waxay aad iyo aad u weerarsan yihiin marka ay suuqa soo galaan inay ka tagaan shaqooyinkoodii ama marka qaar waxay ku diinayaan ustaadow haddaan barto suuqan shaqadayda ma ka tagi karaa marka qaar ayagoo koorsada qaadanaya ay ku leeyihiin waxaan ka soo tagaa shaqadayda haddaba muuqaalkan waxaan rabnaa inaan ku faahfaahino arrintaas markii laga hadlaayo shaqo tagista qofka sideedaba markuu meel ka tagaayo waa inay meel kale u diyaarsanta caadiyan marka qofku haddii uusan haysan bedel maxaa ku dhacaya marka waxaa ku dhacaya inuu jahwareero sababtoo ah shalay waxaa haystay shaqo waxaa kaa soo gelaya income waa ku sharfaneed haddaad tiraada ka waran marka xirfad aadan weli baran ama haddii aad dhex gashid gacantaa si fiican u fariisan shaqadii hore uga tagada tiraada ka waran runtii arrintaas waa arrin dhalinyarada aad iyo aad dhibaato ugu haysa waxaa arkaysaa qof shaqo haystay oo shaqadii ka tegay kadibna guriga jiiftay shaxaad ku nool noqonaya sideedaba haddaad tegaysid bedel kale waa inaa haystaa meel kale waa inay ku diyaarsan tahay meel cidlaha kusoo dhicin weligaa laha haddaba waxaan rabnaa inaan isla wadaagno xaqiiqada dhabta ah ee arrintaas ku gadaaman ugu horeyn waxaa muhiim ah qofka horta inuu fahmo suuqan cryptocurrency-ga yani sidoo u shaqeeyaa taas ayaa muhiim inuu fahmo suuqan ma ahan quick rich maalin taajir qofka inuu noqonayo ma ahan micnaheedu marka ma ahan haddii shaqadaada ka soo tagtid oo aad soo gashid suuqa cryptocurrency-ga inaad taajirayso oad u baahnayn shaqo kale waa arrin qaldan waay arrintaas fahamkaas waa faham aad iyo aad u qaldan waay sidoo kale suuqan fursadiisu intay leegyihiin khatariisu intay leegyihiin waa in ayadana qiimaysaa caadiyan marka qofku markuu cusub yahay waxaa ku badan khatarta ee ku badan sababtoo qofkan khibradu ma lahan fursadihii suuqa si fiican uma arki karo qofka markuu in badan ku dhex jiro suuqa khatartii fursadihii waa kala fahmi karaa fursadihii suuqa faa'iideysan karaa khibradda iyo waxyaabihii uu soo maro ogiis marka inaad labadaas fahamtid suuqan fursad noocee ka jirta khatar noocee ka jirta labadaas markaa fahamtid waxbaa qiimeyn kartaa qodobka saddexaad ee muhiimka waxaa waaye markii laga hadlaayo qaababka lacagta looga sameeyo suuqan qaababka lacagta looga sameeyo tusaale ahaan qof markii la joogo trading oo kale trading markii la joogo qofku wuxuu lacag ka sameyn karaa qaab yacni short term ah ayuu lacag u sameyn karaa inuu maantay coin janiskiisu taagan yahay uu baygareeyo markuu meel fiican ama targetkiisa u tago uu ka baxo profitkiisa qaato qofkaas marka waa qof in badan suuq kusoo jiray aqoontii leh khibrad leh maaragtay dhisan waaye oo inuu shaqeeyo iyo inuu shaqeynin optional lagu haystaa haddii uu shaqada ka tegaayo oo tradingka janis siinayo is okay haddii uu labadu isku wadanayo oo suuqa shifti gaara sii hayo iyadana waa okay qodob kaloo muhiimka waxaa waaye markii la joogo investmentiga waa long term waa sanad iyo wixii ka badan ayuu qofku maaragtay geli karaa marka taasna waxaa waaye qofka asagoo shaqadiisa caadiga wata ayuu investmentiga sameyn karaa uma baahnid inaad ka tagtid shaqadaada waxyaabaha marka cajaa'ib kale waxaa ka mid ah qofka in uu maaragtay dhahayo suuqii baan soo gelayaa shaqadii baan ka tegayaa marka haddaad rabtid investor noqotid uma baahnid inaad shaqa ka tagtid bal adigoo laba shaqo ka shaqeynaya ee investor noqon kartaa even adigoo shaqo kale ka shaqeynaya ee trader noqon kartaa shifti shaqada si shifti suuqa si maalinka gacanta ku fariisto shaqada waa tagi kartaa ilaa maanta wixii income kusoo gelayay oo shaqada kaa soo gelaya suuqa kaa soo gelayaan qodobka afaraad ee muhiimka waxaa waaye oo dhalinyaradu inta badan aysan qiimeynin waa riskiga ama khatarta suuqa ka imaanaysa marka suuqan waa volatile waaye aad buu dhaqaaqis u badan yahay marka adigoo cusub oo wixii ay haysataa keentid aad tiraahdo investment ma sameynaya oo suuqa kula daato riski fiican baa kaa soo gaaraya ama khatar weyn baa kaa soo gaaraysa marka waa in ayadana maaragtay ii sheegaya maaragtay aad uga taxdirtaa sidoo kale markii la joogo tradingku maalin walba chance kama taagna fursaduhu waa kuwa kooban oo u baahan ka faa'iidaysi kuna xiran aqoon iyo xeelad dheeri ah marka ayadana waxaa waaye xilliga jaaniska hesha ay ka faa'iidaysan kartaa qodobka shanaad waan soo fiirinayna waxaa waaye waa qodob yacni tala ah
qodobkan waxaa waaye inaadan shaqada ka tegin adigoo haysan bedel kale. tusaale waxaa rabtaa inaad soo gasho suuqa cryptocurrency. suuqa cryptocurrency markaad soo gelaysid waa in shaqadaadi shaqa u dhiganta ah haysid, ama haddii suuqa aad ku jirtay oo aad rabtay inaad shaqada ka tagtid waa in investment suuqa kuu jiray profit aad qaadatid, profitkaas wax kale kusoo insan kartid, trading ku bilaabi kartid. taana sidaas ayadana waa inay jiraan. sidoo kale waxaa muhiim ah qofka inuu barto suuqa. tusaale shaqadii ayaa joogtaa, suuqa cryptocurrency inaad gasho ayaa rabtaa, shaqada inaad ka tagto ayaa rabtaa. waxaa muhiim ah marka hore inaad suuqa baratid. suuqa baranaysaa, waxaa baranaysaa qaybaha kala duwan, haddii ahaa lahayd introductionka guuda suuqa, fahamka blockchain-ka, investment plan-ka, investment management-ga, fundamentalkii, technicalkii, risk management-gii, trading psychology, waxyaabahaasoo dhan baa soo qaadanaysaa. markaad fahantid suuqa practical fara badan sameey, gudaha u gal, waxaa waa wixii jira soogow, shifti gaara sii, habeenkii kala sii, haddaad subaxii iyo galabka shaqaysid, taani sidaasoo dhan ku furan yihiin. kadib markay gacantaada fadhiisato shaqada waa wareeji kartaa. sababtoo waxaa laga yaabaa dadku inta badan waa shaqaale ku shaqeeya lacag 200 ilaa iyo 700 u dhaxaysa lagu shaqeeya, 500, 600, 700 dad qaata. marka waxaa laga yaabaa haddii akoonkaaga lacag fiican ku jirto inaaba hal trade ama laba trade aad ku qabatid mushaarkii aad sugu jirtay halka bil. marka waa muhiim qofka waxa uu ka shaqeynayo inta uusan gelin inuu barto, taas waa muhiim. gunaanadkeenaan soo gaarnay. haddii aad rabtid inaad suuqan guul ka gaartid, fadlan waa inaad qaadataa go-aan adag oo aad mobilka iyo baraha bulshada iyo waxyaabaha ku mashquulinaya meel iska dhigtaa. suuqan uma baahna qof go-aan jilicsan ama qof nafsidiisu ay ka adag tahay, taas waa inaad ogaataa. sidaadaba mid ogow, maalinkii nafsadaadu ay ka adkaato waa ku dhammaata. nafsadaa ku maamuleeda meela u socoto iyo meela ka socoto ay aqoonweynaysaa. marka saaxiibayaal, talada seertaan idin waday, muuqaalka hala sheer gareeyo, youtube-ka subscribe saar, saaxiibada la wadaag, waa inuu muuqaalka xiga.